السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نمضي صومالي ميل والباجوكتان ونود السلامي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إله نحريستو walaalkeena Ismaaciil Maxamuud Shidane oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Ilaahay u naxariisto, qabrigiisana waasac Ilaahay ugu dhigo, familkiisa iyo xaaskiisa iyo ubadkiisana Ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo, dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta asxaabtii jeclaay. Ismaaciil muxuu ahaay nin dhalinyar oo ubax maanta soo baxayo dalkiisa iyo dadkiisa oo raba inuu wax u qabto, laakiin qadartii intaas ku ekeed. kullu nafsin daa'iqatul mawt. Ilaah u naxariisto. Ismaaciil muxuu ahaay nin haliyey qaran, nin dhalinyar oo jecel waddankiisa iyo dadkiisa. muxuu ahaay nin qabiil iyo quran oo jecleen. Ismaaciil muxuu ahaay nin qaranka Soomaaliyeed iyo wadaninimada la weyn. waa nin oo dhalinyarta Soomaaliyeed dhan inay ku daysadaan ahaay. Ismaaciil dabcan muxuu ku noolaay magaalada ama dalka UK Ingiriiska. nin caafimaad iyo waxbarasho iyo shaqo oo haysto ahaay. ninku nool dal Yurub ka mid oo ahaay, ammaan leh. markaas muxuu jeclaaday intaasoo dhan muxuu u huray oo naftiisa u huray inuu dalkiisa iyo dadkiisa uu garab istaago wax u qabto. nin muxuu ahaay oo dadka masaakiinta wuxuu qaban jiray, bulshadana wuxuu qabtay. nin muxuu ahaay qarannimada ku weyn. Yuruboo ka soo tagay dalkiisa u aaday, intaas asigoo haysto oo ka tagay dalkiisa u aaday inuu ummaddiisa iyo qarankiisu garab istaago. dhalinyarta maanta dalkooday ka soo cararaan, Yurubay u soo ordaan iyo debidaa. Ismaaciilne Yuruboo ka tegay, UK oo ka tagay asigoo nabad iyo ammaan iyo raaxa haysto. muxuu ogaaday raaxada qalbiga iyo raaxada jismiga inay dalka tahay, inay waddan shisheeye ahayn. waddankiisu u naqday, dadkiisu u dhex galay, dhalinyartiiu waddannimadii baray. waa nin mudan in lagu daysado. dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed dhan kelmad uu aad u dhihi jiray baa xasuustaa oo xasuusata ummadda Soomaaliyeed dhan. aniga qabiilkayga haddii ku soo duulaan dowladda la safana ama qaranka la safana, ninkii dhihi jira waa nin wadaninimada qaaday
oo qabiil iyo qurankiisa ka tegay. taas waa qodob. wuxuu kale oo qaban jiray dhinaca bulshada, dadka masaakiinta tabar yar oo muqdisho ku nool buu magaciisa lacag in loo aruuriyo wax loo qabto uu samey jiray. howlba u hayay dalkiisa iyo dadkiisa. waa nin oo wallaahi mudan ina taalo loo sameeyo, ama dhalinyartii Israa'il xasuusta ummadda Soomaaliyeed u qabaan inuu asiga dhinac ka galo. ilaahay u naxariisto walaalkeena, qabrigiisana ilaahay waasica ugu dhigo, annagana ilaahay bacdigiisa mana fidneeyo, familkiisa iyo xaaskiisa iyo ilmihiisana ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo. Ismaaciil familkiisa lama ka tegin. ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarta oo hadda soo baxayaan buu ka tegey. qalbigeena aad ugu weynaay. aniga Ismaaciil shakhsiyan muu ka seenin, laakiin muxuu ahay nin oo aad qiiradiisa iyo dal jeceelkiisa isu jiidi jiro ahay. maantana aada ugu naxay geeradiisa. walaalkeena ilaahay qabrigiisa waasica ugu dhigo. shuhadaada iyo maca alciliyiin والنبيين والصديقين إلهي مثواجس أوديجو حوصو قلي ما أنتينا وتعسيه إلكي يفهم الكي وكتاي وراك إسماعيل إلهي صبر هني قصيو وحاسك كلا وأمها سن دولة دينا ما أنت ورقتك صوب بحضي والتعسيدي وموجسي فيلا صوماليا مدحوينين قرنكا تنوى شهادة كلا وإسماعيل وبتكيس إن شاء الله كفاني دونان أنا أبو هذا محسوح حسوستي مدحوينها قرنكا أسيقو اسكو قبيل لهان أسيقو واحد وكدحي ما أنت جرين والدولة ودفاع الجري مدحوينها قرنكا انت أسلي إنه نولاتو الصوماليا انت أسلي دولة نمد إنه نولاتو ما أنت تعسيرك صوب بحذ فيلا صوماليا مدحوينها آدي ومهسين هاي قرب كيو استاغي دانيرتا والدولة نمد جعل wax lagu daysado oo magaciis lagu faano waaye aad u maasiyay madaxweynaha qaranka Ismaaciilna insha Allah jidkii oo jeclay jidkii wada insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadanimada ku weyn baa wadi doonaan insha Allah walaalkeena waa nin iloobi doolin insha Allah qulubteena xasuuso doonto إنا لله وإنا إليه راجعون وحاك الله مقلينا إن ولالكينا للسميي تاسني وحا عداي كرو اسبتالكي إهل كيسة لكن وحا لأوغاي وإسماعيل ولنتي إيهاد سكر وقبي لكن مع عداي كرنو إنو سن ولسيي taasna maxaa cadee kara sida uu sheegay familkiisa iyo isbitaalkii oo maalmaha dambe oo jiifay laakiin waxa ognahay maxaa waa in sokor si xun oo maalmaha u haysay waana ka xunnahay insha Allah laakiin waa dariiq wada mari doon insha Allah إلى أن نحرست ولالكينا وني ودا السلامة من والباجوكت أمة الصوماليات
wada duceeyo walaalkeena ilaa uu naxariis qabrigiisana waasac ugu dhigo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.